mudanayaal imaryoon waxaan u mahad celinayaa dowladaha ay Soomaaliya saaxiibka la tahay ee hiil iyo hooba la garab istaagay dhismaha iyo ku garab istaagay dhismaha iyo qalamaynta ciidamadeena qaranka gaar ahaan dowladda Mareykanka oo mar walba si buuxda loo garab taagan haddii ay tahay dhismaha ciidamada qaybahooda kala duwan iyo haddii ay tahay dagaalka aan khawaarijta kula jirno sidoo kale dowladaha kale ee saaxiibada ah ee ayagana noo muujiyay intaas oo kale waxaa xusid mudan in khawaarijta Daacish ay in muddo ah fariisimo ka sameysteen buuraleyda deegaanada dowlad goboleedka Puntland si ay khatar joogto ah ugu hayaan nafta iyo hantida muwaadiniinta Soomaaliyeed sidoo kalena caalamka ugu muujiyaan inay khatar gelin karaan marinada istiraatiijiga ah ee gacanka cadmeed iyo badda cas waxaan garab taagannahay ciidamada dowlad goboleedka Puntland iyo shacabka reer Puntland ee sida geesinimada ah ugu bareeray inay khawaarijta Daacish ka xoreeyaan deegaanada iyo meelihii ay soo galeen dib ay uga bixiyaan si ay u hungowdo rabitaanka iyo hamiga khawaarijta Daacish ay ka qabaan deegaanada dalkaas waa dagaal xaq ah shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogana ay waajib ku tahay inay garab istaagaan